السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا جنالك برو اي سي تي اي تي طبعا شير جراي سبسكرايب ستار مع سنة ستة وصام قلنا عشر كيني أنكو برنجني عشرة دي اي سي تيجا أما اي تيجا واتي أنكو جرني عشر كأن برندون عوضا و إتا بوتا إهتوس وحلو يقانو أما الريموت ديسكتوب كونكشن محوي هي badanaa waxaa isticmaala shirkadaha maaragtay ama jaamacadaha waxaana loo isticmaalaa si maaragtay computer kale loogu xiro adoo computer kale maaragtay aad isticmaalayso in aad computer kale ku xirnaato ama maaragtay tusaale ahaan adoo computerka shaqada inaad inta ka isticmaasho gurigaaga ama ardayda jaamacadaha dhigta maaragtay in ay iyagoo gurigooda jooga inay ka isticmaalaan computerka ay jaamacadda u yaalo maaragtay maadaama uu barnaamijyo badan leeyahay in halkaas ay ka isticmaalaan ayaa loogu talagalay marka waxaan geli doonaa sida qaabka loo sameeyo si toos practicada saad u jeedaan laba computer ayaa inoo diyaarsan windows maaragtay wigis one ama computer one ama computer two laba computer saad u jeedaan windowyada way kala duwanaan karaan windows 7 ku jiri kara hadda labadan laba ten ku jirto laakiin windows 7 windows 8 window nooc kasta haysto ayaa awood u leedahay in aad connectionka maaragtay aad ihtiis ku samayso maaragtay remote desktop aad ku samayso si toos u gasho marka casharka qaabka aan ugu fikirin wuxuu yahay kow waa inaad ogaataa IP addressyada in ay isla yihiin ama isku xigaan marka meesha internet connectionka ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa right click ababerko ayaad ku dhufan doontaa ama open maaragtay network dabcan wuxuu ku samaysan yahay finish laakiin luqadda finishka laakiin waxaan ku fasiri doonaa luqadda Soomaaliga iyo Englishka ayaan ku fasiri doonaa iyo Soomaaliga marka halkan joogto Ethernet-ka aad joogtid waxaad halkaas ayaad ku dhufan doontaa oo mode softness asset-ka meesha loo yaqaano ama settingska sidaad qof kastoo IT bartay ama connectionka ama maaragtay networkingka wax ka bartay uu fahmaya halkaas Ethernet-ka ayaa ku dhufanaysaa kadibna maaragtay double click aad ku dhigi kartaa ama right click open isolate double click aad ku dhaadanaysaana ku soo baxayso kadibna waxaad tagi doontaa internet protocol version 4 ama TCP/IP 4ka ayaa tagaysaa 6 ayaa jiro ma isticmaaleen kana isticmaaleen hadda right click macnaha double click ku leedahay oo ku furmaya sidan kadibna gauta server osoited macnaha waxaad IP addressyada soo socda ay gelin doontaa tusaale ahaan waxaan gelinayaa 192.168.100 juusta kadibna calaamada taabka ayaa keyboardka taabanaysa si toos ayuu ababerko ama kuu siinaya kadibna okay ayaa dhehena kadibna okay ayaa dhihi doonaa waan iska xiraynaa marka kan hadda IP addresskiisa wixii dhan waan soo saxnay kan labaad ayaan tagaynaa computerka labaad asina sidoo kale the same steps ayaa raaci doontaa qaabkii hadda aan raacaysa right click verko open ethernet-ka tagaysaa kadibna waxaad tagi doontaa mode software kadibna halkaas ayaad ethernet-ka right click aan ku dhahno hadda double click aan ku dhahno si toos ayuu nagu keenayaa double click halkaas ayuu ku keenayaa open isolate kadibna waxaad ka dooran doontaa internet protocol version 4 TCP/IP 4ka ayaad dooran doontaa waqtiga ayaa nagu yaraanaya laakiin halkaas ayaan kasii wadaynaa hadda labada connection waa noo diyaarsan yihiin labadii connection waa noo diyaarsan yihiin casharka kale la soco